Naagtan oo ka nixisay dadka markay mar qura ah kasoo muuqatay tacsiyadeedii. Naagtan magaceeda waxaa la yidhaahdaa Noela. Naagtan waxay isqabeen ninkan muddo 10 sano ah. Ninkan aan sawirkiisa halkan idiin soo saaray isqabeen muddo 10 sano ah. Maalin maalmaha ka mid ah Noela ninkeeda oo ninkan ah wuxuu ka shakiyey inay Noela qiyaamayso oo markaa dad kale xiriir ay la leedahay. Ilaa markii dambe uu shakigiisa gaaro inay iyada ka tegi doonto oo markaa nin kale ay raaci doonto. xiriirna markaa nin kale ay la leedahay. Maadaama uu markaa shaki badan qaaday wuxuu ku fikiray inuu markaa 3 tilaabo uu mid qaado. Tilaabada koowaad oo ah inuu kala hortago Noela oo markaa u sheego inay asaga ka tegi rabto oo markaa niman kale ay xiriir la sameyn rabto. Inuu markaa u sheego kala hortago uu markaa la doodo. Arrinta jirtan uu markaa ogaado maadaama uu shaki badan qabo. Tilaabada labaad oo ah markaa inuu iska furo Noela. Tilaabada saddexaad oo markaa ah inuu u adeegsado Noela niman dad dila ah markaa si ay iyada ugu dhameeyaan mise ay u dilaan. Marka tilaabada saddexaad ayuu qaadan doonaa sheekadiisa inkiga dhaca. Marka wuxuu qaatay go'aan ah tilaabada saddexaad ayuu qaatay oo markaa ah inuu u dhameeyo xaaskiisa Noela. Noela iyo ninkeeda waxay ku nool yihiin markaa Australia. Laakiin Noela marmar qaar ay soo aadaa Burundi oo markaa ah dalkeeda hooyo. oo markaa qaraabadeeda iyo waxaan ay soo booqataa marmar ay soo aadaa Burundi Noela. Maadaama markaa uu go'aansaday inuu Noela u dhameeyo markaa dad u adeegsado wuxuu wacay nin uu asaga ka saayay markaa oo Noelana markaa iskala soo jeedaan Burundi qaasatan magaalada ay Burundi markaa magaalada ay tagto Noela badana ay familkeeda ku booqato. Ninka soo jeeda ayuu markaa la heshiiyey si ay ayada ugu dhameeyaan. Marka ninkaas ayuu wacay wuxuuna ku yiri inaad u dhameysaan ayaan rabaa xaaskeyga oo markaa aad dishaan. Markii ay imaado Burundi qaasatan magaalada markaa maadaama uu ninkan yaqaano xaaskiisa oo markaa magaalada iskala soo jeedaan wuxuuna siiyey 4,500 oo markaa oo dollarka Mareykanka ah. Marka xaaladdeedu maadaama Noela markaa ay iska joogto Australia oo ninkeeda markaa isla joogaan asagana markaa uu tilaabiyonka uu ku dhaqaaqi rabo ay markaa ayada la soconin. Maalin maalmaha ka mid Noela waxa laga soo wacay familkeeda xaggaas iyo Burundi waxaana loo sheegay inay dhimatay habar yarteed macaan inay dhimatay aan loo sheegay. Sidaa darteed Noela waxay go'aansatay inay soo aado Burundi si ay markaa ugu qayb gasho tacsiyada habar yarteed. Noela waxay go'aansatay inay markaa soo aado Burundi qaasatan magaaladii familkeeda ay degnaayeen si ay ugu qayb gasho tacsiyada habar yarteed. Kadib Noela waxay soo goosatay ticket waxayna soo raacday diyaarad oo markaa ka soo bixaysay Australia si ay u imaado Burundi qaasatan magaaladii markaa habar yarteed ay ku dhimatay oo inay ugu qayb gasho tacsiyadeeda. Noela markaa way imaaday waa soo degtay waxayna ka qayb gashay tacsiyadii habar yarteed. Maalin dhan la joogay marka xilli galab markaa oo qoraxda ay dhacayso mar la joogo ayay iskiga soo tagtay oo markaa iska soo aaday hotel si ay u seexato maadaama ay cajisneed oo markaa safar badan ay ku soo jirtay saacado badan. Maadaama ay Noela markaa soo aaday hotel si ay u seexato hotel ayay heshay markaa wayna bug garaysatay. Markay saacado yar joogtay hurdiya ka soo dhici waysay maadaama habar yarteed ay dhimatay markaa tacsiina ay ka imaaday. Marka hurdiya ka soo dhici waysay waxay is dhahday binaanka hotelka ma usoo yara baxdaa wax yar leyr saa u qaadatid oo markaa leyr u soo qaadatid. Kumbe markaa ninkeedana nimankii ayuu balangareeyay maadaama iyada la socdo hotelka ay saaxatay wax walba uu la socdo wuxuu balangareeyay inay meeshiida markaa ugu tagaan. Iyagoo markaa hotelka binaankiisa wareega markaa maadaama habeen la joogo ayaa ayadoo soo baxday oo markaa leyr qaada leh oo binaanka taagan hal mar geesaska loogu soo baxay. Bastoolada madaxa loogu qabtay markaas lagu dhahay dad qaylis madaxaada qarxa bis waa la qabtay gaariga la geli gaari oo markaa meel wax yar aan saas ugu fogeen yaalay aan markaa dalaq la siiyey gaarigana waxa kusii jiray niman markaa sii hubaysnaa oo markaa loo sii diyaariyay. Dhaxda ay gisteen si ay markaas u qaylinin indhahana u xireen gaarigina wuu dhaqaaqay. Markii muddo 30 daqiiqo ay socdeen ayay imaadeen maadaama ayada indhaha u xiran yihiin guri ayaa la keenay markaa uu soo geliyay kursi aan lagu fadhiisay lugaha iyo gacmaha
laga xiray maadaama indhahan ay ka xiran tahay. Kursiga lagu fadhiisiyey waana lagu xirxiray. Nimankii marka wax yara meel yara geesa yara aadeen, ninaa u yimid marka ugu eg nimankii afduubanayay ninka u weynaa uu markaas soo kireystay ninkeeda. Fahmaysaan aan rajeynaya. Marka wuxuu ku yiri maxaad galabsatay marka aad ka hadlaysay ninkan rabo in adiga lagu dhameeyo mise lagu dilo. Markaasay weydiis waa ninkee. Ninka adiga ku qaba aa layiri. Ninka adiga ku qaba ayaa lacagna soo siiyey si aan adiga kugu dhamayn. Marka maxaad ka suubisay uu naceebkaas kugu qaaday maxaad ka suubisay. Markaas oo soo buuday ninkayga waxaas kuma dhaqaaqaya waxyaabahaas qaarna kama suurtoobaan ay dhaatay. Marka waxyaabaha qaar kama suurtoobaan ninkayga ay ku dhaatay maadaama indhahan ay ka xiran tahay arkaynin laakiin. Marka wuxuu yiri haddaan wacaa dhegeysa. Wuu wacay wuxuu yiri xaaskaadii waan soo qabanay waan haynaa. Markaas ayuu yiri u dhameeyay maxaad sugaysaan. U dhameeyay maxaad sugaysaan. Noela marka waxay maqashay u dhameeyay maxaad sugaysaan. Iyo codkii ninkeeda ay maqashay. Noela marka waa suuxday maadaama waxaad lama filaan ay ku noqotay way suuxday. Marka cabaar markay suuxsaneed ay soo kacday hal mar. Markay soo kacday ninkii ayaa u yimid markuu arkay inay soo naxday. Markaas ayuu ku yiri waxaan go'aansanay inaan markaa ku dilin adiga oo markaa iska gaadayna. Maadaama aan anaga markaa caruur iyo dumar markaa aanan dilin inaan iska gaadayna. Laakiin uu markaa rabo inuu lacag badan ka qaato ninkeedii. Lacag badan maadaama hadduu uu ka qaatay 4,500 lacag kasii badan inuu ka qaato ayuu uu rabo markaa. Ninkeedii ayuu wacay. Marka wuxuu weydiistay lacag ah 2,500 si ay shaqada u dhameeyaan. Marka wuxuu yiri waa in soo gelinaa shaqada dhameey. Muddo yar kadib ninkeedii ayuu wacay. Wuxuuna u sheegay inay xaaskiisa dhimatay. Kadib Noela ninkeeda wuxuu tagay Western Union si uu markaa ugu soo wiring gareeyo ama ugu soo diro lacagta 2,500 uu markaa codsaday. Kadib lacagtii ayuu u soo diray. Ninkeedina wuxuu haystaa marka hawshii inay meelaas ku dhamaatay. Maadaama marka hore kama aysan deynin 2 maalin ayaa la marayaa. Maadaama marka ninkii lacag laga rabay in hawsha loo qabtana la rabay wuxuu marka 2 maalin ayaa la marayaa maadaama uusan marka maalinka la soo qabtay aan marka isla maalinkaas aysan deyn karin oo marka lacagtii iyo wixii kulli processka kulli ay qaadatay 2 maalin. Markii la marayo maalinka labaad ayuu u yimid marka nimankii soo afduubtay ninka u weynaa marka la hadlayay ninkeeda ayaa u yimid oo ku yiri marka waan ku deynaynaa. Baqshad ayuu u dhiibay. Baqshadaas oo marka ay ku jirto laynkii lacagta marka loogu soo diray asaga marka ugu soo diray ninkeeda. Baqshad ay ku jirto laynkii marka lacagta lagu soo diray iyo cadeymo badan oo marka tusinaya inuu ninkeeda uu rabay inuu u dhameeyo ayada si ay markay wadanka u laabato ay u dacweyso asaga. Fahmaysaan rajeyna. Asxaan ayuu u suubiyey. Wuxuu u dhiibay cadeymihii kulli si ay hadhow marka ugu laabato Australia ay u dacweyso ninkeeda oo cadeymihina marka ay u gudbiso dowladda ama booliiska ay ugu gudbiso. Kadib Noela waxay saareen gaari iyagoo marka ku soo qaaday gaari marka uu ku soo dejiyay meeshii ay awal ka qaadeen meel ku dhow. Markaas ay ku dhaheen meel gees ah inay ku dejiyeen ay ku dhaheen naagaha sidaada camal u sheeg wixii inta ka dhacay. Naagaha doqomaha oo sidaada camal u sheeg wixii inta ka dhacay si ay marka ugu tusaale qaataan. Nimankii way iska tageen marka. Ayada maadaama ay marka nooshahay oonan la dilin way faraxday maadaama aan la dilin oo marka loo dhameynin hawsha sida ay haday u dhicin. Kadib way soo tagtay laakiin waxay rabtaa inay ninkeeda marka ku dacweyso maadaama ay cadeymihii hayso oo marka asxaan loo suubiyey oo ninka u weynaa asxaan u suubiyey. Kadib way soo tagtay diyaarad ay soo raacday ayadoo marka dhaxda ku soo jirto. Maadaama marka ninkeedii u haystay in loo dhameeyay Noela wuxuu is yiri jiirama u sheeg inay Noela marka Burundi markay ku laabatay ay gashay shil baabuur oo marka shilka baabuurna ay marka ku geeriyootay. Sidaa darteed marka uu rabo inuu tacsiyo halkan ugu dhigo. Marka ninkeedii waaya asagana wuxuu u maleynayay in loo dhameeyay. Marka dadkii ayuu iskugu yeeray Noela marka safar ay ku soo jirtaa
dadka ay iskugu yeeray iyadoo tacsidii la tuuran yahay qof walba uu joogo hal mar diyaaradda kasoo degtay gaarihii soo qaadatay tacsiyada la wada tuuran jiiraamihii kulli iyo Noela wixii aqaani kulli ay tacsiyada wada joogaan marka tacsiya u dhig ninkeedii hal mar ayadoo gaari taksi fuusha hal mar soo gashay asigii meeshii joogo markuu isku naxay inay dhimato u maleynayo isku naxay u maleysan dadkiina waxay ku dhimatay markaa shil baabuur ayuu yiri dadkiina waa yaabeen marka booliiska ay wacday arrimihii kulli ka dabgeysay meeshii ay imaadeen arrimihii kulli ka dabgeysay waxay u dhiibtay cadaymihii markaasaa Noela ninkeedii ayaa markaa la xiray jeelka la dhigay kood ayaa lasoo geeyey marka maxkamadda ayaa la keenay cadaymihii markii lasoo hordhigay maxkamadda marka wax waa caddaatay inuu ninkan inuu dilo rabay Noela uu dhameeyo marka waxaa lagu xukumay 9 sano oo xarig ah maadaama uu markaa isku day dil uu suubiyey waxaa lagu xukumay 9 sano oo xarig ah marka sheekada halkaas ay ku dhamaatay Noelana marka caruur 3 ay lahayd caruurteeda iska korsanaysaa meelo kale ay markaana u guurtay maadaama marka ninkan noloshiisa inay ka fogaatay tahay uu ka soo baxay jeel marka sheekada halkaas ay ku egtay khayr ayaan rajaynayaa channelkan subscribe noo saar dhacdiyoon run ah idiin soo gudbinaa marka khayr ayaan rajaynayaa subscribe saar channelka facebookna waa soo dhignaa Suldaan Qafaar Production 1 halkaasna follow naga soo dhaha tiktokna follow naga soo dhaha marka youtube-kana way nagala soconaysaa insha Allah khayr ayaan rajaynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.